muuqata oo lagu magacaabo Luzina ayaa maanta hadalhaynteeda social media uu ka taagan yahay. Gabadhan way xanuunsan tahay, walibana xanuunkeeda wax ka dambeeya haddaad ogaato ma aamini doonto. Xanuunada kale waa ka duwan yahay. Ilaahay ha caafiyo marka hore, laakiin sheekada ka dambeysa xanuunkeeda iyo waliba waxa la isla dhaxmaraya social media haddaan kuu sheego ma aamini doonto. Muuqaalkan waxaan ka codsanaynaa inaan nolol gareysis dad badan uu gaaro siina share garay. Tan kale gabadhan aan u wada duceeyno. Wax walba ay ahaato qofku mar hadduu xanuunsan yahay waa inaan u duceynaa. Gabadhan maxaa sababay xanuunkeeda? horta social media gabdhaha qofba si ayuu ku joogaa siiba Soomaalida gabar shactiray ku joogtaa gabar fanaanimay ku joogtaa gabar quruxay ku joogtaa like gabdhaha midba mid waxay ku joogtaa laakiin gabadhan waxay ka mid tahay gabdhaha quruxda ku jooga TikTok like jooga dhihin jamaala dhihin like qurux gabar intii looga baahnaa haddaan dhihi karo haddaysan ahayn in qofka uu like uu gabadha inay hadal badan tahay oo kale iyo waxaas haddaysan ahayn inta kale qurux Ilaahay waa siiyey laakiin gabadhan sanadii lasoo dhaafay TikTok iyada ay u shineed laakiin dhibka ay qabto waxa waaye gabdhaha kale waxay uga duwaneyd in qof walba waxay ku aragto ay banaanka keenayso ay sheegayso like sheekada la yaabka gabadhan xanuunkeeda waxaa sababay gabdhaha sidaan ognahay gabar walba meesha u qurux badan tahay ragga kaliya uma soo bandhigto gabdhaha inta badan gabdhaha kale ayay isku qurxiyaan gabadhan maanta day ka qurxan tahay meeshay u qurxan tahay soo bandhigtaa soomo gabadhan waxaa la sheegay in gabdhihii kaloo TikTok ku jiray ay ugu faantay kubka like lugaha gabadhan ayaa la sheegay in gabdhihii kaloo TikTok ku jiray ay ugu faanaysay maalin walba kubkeeda yacni in iyada ay leedahay kub qurux badan laakiin maxaa dhacay gabadhan ayaa isbuucii lasoo dhaafay waxay ku xanuunsan tahay magaalada Nairobi Ilaahay caafiyo in lugta ay ka xanuunsan tahay walibana kubkii ay dadku ugu faanaysay oo gabdhaha ay ku caynaysay sida la sheegay ay maanta ka xanuunsan tahay